بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan hore u anbaqaadaynaa casharkeenii imtixaanaha noo ahaa ee Windows-ka. waxaan ku jirnaa weli my computer ama this computer. Right click property. Then waxaan maraynaa marka waxa la yiraahdo battery storage. Battery-gan ku dhufanaynaa. Computer kasta oo laptop ah ama desktop ah wuxuu leeyahay qaab percentage ah oo uu isticmaalo batteriga uu isticmaalayo. Programmadu ku jiraahay midban qaab uu u isticmaalaa. For example, hadda kan ugu horeeya waa barnaamijka la yiraahdo Google Browser. boqolkiiba 74 ayuu ka isticmaalayaa dabka computerkiga ku jira. halka Windows Explorer ka furan ee caadiga ah hadhow aan arki doonaa casharka ka mid yahay oo isticmaalayo boqolkiiba 8. Systemku ay isticmaalayaan boqolkiiba 4, boqolkiiba 3, boqolkiiba 2. qaabka aad u jeedaan ayuu batteriga computerku dabka uga dhacaa oo computerku u qaybsadaa. hadba mid baa awood badan kadba aad ugu shaqada badan tahay baana dabka inta badan qaadanaya. Battery storage haddaan ka tagno waxaan tegaynaa storage. halkan waxaa kaaga muuqda local disk C. dhammaan waxaa halkan ku jira computerka macluumaadkiisa hadday noqoto documents iyo hadday noqoto programs iyo faylal gaar ah oo uu samaysto Windows-ku aan arki doono. For example, hadda local disk haddaan soo qaato intay GB tahay qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasaa 1 terabyte. user space ka aan isticmaalnayna waxa weeye 138 GB. free space ka noo dhimanna waxa ay 728 GB. halkan waxaa ku qoran desktop. xogta computerkan desktopkiisa saaran waxay dhan tahay 3.4 GB. waxaa kaloo halkan ku jira waxa la yiraahdo temporary files. faylashan waxay ka qayb qaataan Windows-ka culeyskiisa. waxaana ku jira 32.2 GB. halkan waxaa ku jira applications-ka iyo features-ka cusub waa 12.7 GB. halka documentiga caadiga ah uu yahay ee dhammaan computer ku jira 2 GB.32. marka most of them halkan wax badan baa ka tuuri kartaa si computerku ugu fudaado. click baa siinaysaa waxaa ku soo baxaya temporary files wax la yiraahdo. temporary files laba qaabood waa lagu helaa. habkan hadda aan idin tusinayo waxaad ku helaysaa temporary files Windows temporary files. wuxuu iskaan gareynayaa sida scan Windows update cleaning app. wuxuu iskaan gareynayaa temporary files-kii ku jiray computerka. wuxuu ku soo saaray download iyo recycle bin. labadaas ma saarna wax tiga laakiin wuxuu tig saaray Windows clean up iyo Windows upgrade file long file iyo thumbka. intaa uu saaray dhammaan waxaad dhigi kartaa delete. kuwa tigtu ka maqan tahay micnaheedu waxa weeye waa digniin ka digtoonow ha iska tirtirin ka fiirso. badanaa dadka barbaradka ah uma fiicna meeshaan oo kale inay yimaadaan maxaa yeelay waxaa laga yaabaa xog
desktopka u saarneyd ama download ahayd oo download ugu jirtay inuu iska tirtiro download fileskaagii aad soo degsatay inaad iska tirtirto intaad tigtirsaatid ama xogaa u baahan tahay si khaldan kaaga luntay oo recycle binka kuugu jirta inaad iska tirtirtid simply markaad waxaad siinaysaa remove files waxaa kaloo lagu ogaadaa hab kale habkaas oo ah halkaasa waxaa ku qoraysaa temp tan enter baa leedahay temp tan waxaa leedahay enter wuxuu ku keenayaa isla goobtii kadibna waxaa kasii dooranaysaa temporary files kadib marka kuu soo baxdo sidaan awalba hor kuugu soo sharaxay delete baad dhigi kartaa laakiin ka digtoonow haddana aadan si fiican u aqoon ha iska tirtirin downloadga iyo recycle binka tigta ka ilaali waxa kale waa iska saari kartaa tusaale ahaan hadda remove baa dhihi karaa wuxuu sameynayaa hadda wuxuu iga saarayaa wax allaalo wixii qashin ahaa oo ku jiray intii computerku soo qabtay waan sugaynaa waxaan sii gudagelaynaa waan sii wadaynaa casharka halkan waxaa la yidhaahdaa star windows star button hadaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa shaashadan star buttonka waxaa lagu sameeyaa adoo click yiri iyo adoo yiri control plus escape labadaaba waa ay ku soo baxdaa waxaa inoo xiga qodobka xiga oo la yiraahdo search for example file baad xasuusataa kaa maqan laakiin meel aad dhigan weyday garan weyday meel aad dhigtay garan weyday halkan aad ka search gareynaysaa waxaa leedahay for example waxaa leedahay document haddaan xasuusto for example documentskan anay iigu jiraan configurate player to something like that kulli anay iigu jiraan automatically kii aan markaa u baahnaa waan ka dooranaya haddaan sii guda galno halkan tagno fanaxda furno open dhahno goobta uu yaal open file location itus goobta uu faylkaasu yaalo click baan siinayaa folderka uu yaalay buu igeeyey waa kana halkaa marka waxaa ku aragtay faylka kaa maqan iyadana inaad dooran karto oo soo heli karto taskbar waxaa la yidhahdaa horta from the calaamada start buttonka ah ilaa cornerka taa u dhaxaysa taskbar baa la yidhahdaa waxyaalo badan baa ka mid ah waxaa ka mid ah Microsoft waxaa la yiraahdaa Microsoft Eagle Browser baa la yiraahdaa kan waxaa la yiraahdaa Explorer waa day horey baan u soo aragnay haddaan ka fiirsino goobaha meelaha wax laga gala bay ka mid yihiin oo wax badan laga heli karo xoga badan sida hadda desktopkii downloadkii documentkii pictureskii videoskii waxyaalihii aad soo furfuratay oo dhan waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo store player waa kana storage player waa Microsoft Store halkan waxaa laga helaa dhamaan shirkadan Microsoft waxa ay diyaarisay oo programa ah qofku waa inuu email outlook leeyahay kuna xiran yahay program shirkadan la yiraahdo Microsoft wuxuu kala soo degi karaa file-ku rabo ama document-ku u baahan yahay marka guda gasho wuxuu ku weydiinayaa email connection fiir haddaan khadkii ima joogo wuxuu already weydiinayaa emailkii waa gelinayaa dan waxaan soo degsan karaa wixii aan markaa u baahanahay kan waxaa la yiraahdaa mailbox
email box. Then maanta waxaan jeclahay marka casharkeenu inuu ku koobnaado intaan, maadaama aan awalba samayn jirnay in yar oo qofka anfacda, waana sii wadi doonaa casharadeenna si continuous leh. dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ka faa'iideysanayaba waxaan idinku hambalyaynayaa kusoo dhawaada casharadan bilowga ah oo looga faa'iideysanayo kombiyuutarka. halkan sidoo kale waxaa la yiraahdaa task view markaad click siisid waxa weeye dhammaan programmada kuu furan. hadda waxaa ii furan kan, waxaa ii furan kan. task view-gaas wuxuu kusoo bandhigayaa programskii. for example 10 file oo kala kuu furan aad ku kala shaqaysanaysay. hadba kii aad ka dooranaysaa, dhac kii baa kusoo kacaya. hadba kii aad markaa uga baahan tahay baa ka dooranaysaa. kan haddaan ku dhufta kan ayaa soo kacaya. marka task view-guna wuxuu ku ficil yahay dhammaan. halkan wuxuu kusoo dhigayaa wixii documents ahaa aad u baahneyd. marka casharkeena maanta wuxuu ku eg yahay halkaa. waxaan jeclahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysato ee daayirta ah. aad baa u mahadsantihiin. Thank you very much.